بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد waxaynu bilaabeynaa qur-aankii maalinaha inoo soo gelin jirnay halkan maanta waxaynu ku bilaabeynaa suuratul falaq iyo suuratul ikhlaas waxaynu soo raacnay maanta laba suuradood waxaad nooga barateen suurad marka wixii intaa jis cama lagu jiro waxaynu u wadi doonaa laba suuradood iyo saddex suuradoodba insha allah waxaan rajeyneynaa inaynu saa ku wada soconno haddii la qadaro. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. إن شاء الله تعالى saasuu inoogu socon doonaa haddii alla ka dhigo halna laga faa'iidaysto. qur-aanka kariimka wuxuu u wanaagsan yahay qof walbo islaama iyo qof walbo ku xidhan taqwada ilaahay si ay ugu soo dhawaano. marka insha allah tacaala waxaan rajeyneynaa inaad ka faa'iidaysan doontaan haddii alla ka dhigo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.